I think the people who live around here, now they understand this project, what it is. So for us, on behalf of the governor, always I tell the people the benefit of the project. So I hope the people now they are ready to work with you, and even they are ready to support the team who implemented this project. I would like to thank the ambassador and the Taiwan country and for your support and other supports you give Somaliland. We're glad to have you here. And this is a very important project, and as you said, this is the start. Inshallah, as we say, you will support us for the long term. The support from the entire Somaliland government and the communities. So I just want the communities to know that we are here for them. And even though it looks like what's going on here, they are going to be the beneficiaries. It's just going to take a little bit of time. But our team on the ground, who are working out of here, are going to grow, and this area is Actually, Jetta is one of the most endangered species of wildlife, especially in our area, because there was a lot of trafficking. And even if you try to stop trafficking and you capture people, it was not a real solution. The major solution now is what we are on today. It's a great day today, and I hope we will see the fruits of this soon. Thank you very much. Thank you for Cheetah Conservation Fund. Thank you, Taiwan Ambassador. Thank you, ministries and others who come. Hope that this will not be the least one that we do. Hope that there will be other places in Somaliland that we can conserve for our wildlife. It is delighted to be invited to Somaliland Geed-deeble National Park to witness the first wildlife conservation facility of cheetah in the Horn of Africa, established by Cheetah Conservation Fund and guided by Environment and Climate Change Ministry. There's only one Earth. In Taiwan, we always say so. We have to love it and also protect it. In order to show Taiwan's support for natural conservation, this office coordinated with the Forestry Bureau of Council of Agriculture. That's our Ministry of Agriculture, which is in charge of the natural conservation of Taiwan, to fund Cheetah Conservation Fund. maanta waxaanu joognaa Geed-deeble waxaanu joognaa mashruucii ay ka shaqeynayeen hay'adda CCF oo maaragtay ka shaqeynayeen doonayeen in lagu soo raro halkan jitayaasha ama harimacadka xaruntiisii weyneyd ee loo sameeyay Geed-deeble kan maanta waxaanu joognaa Geed-deeble waxaanu joognaa mashruucii ay ka shaqeynayeen hay'adda CCF oo maaragtay ka shaqeynayeen doonayeen in lagu soo raro halkan jitayaasha ama harimacadka xaruntiisii
xaruntiisii weyneyd ee loo sameeyay Geed-deeble waxaan maanta halkan nala jooga dad fara badan waxaan nala jooga wasiiro waxaan nala jooga safaaradda Taiwan waxaan nala joogta Dr. Mark iyo teamkii oo dhan oo CCF waxaan nala jooga dad badan oo martiya maanta safaaradda soo booqatay Taiwan baa halkan timi safaaradda Taiwan baa maanta runtii halkan aan ku soo wada dhaweynay si ay u arkaan waxa maanta halka ka socda safaaradda oo doonaysa iyaguna inay gacan qabtaan oo caawiyaan mashruucan marka waa mashruucii qiimaha lahaa halkan markaan ka tagnaa waxaan tagaynaa insha Allah mashruucii kale ee botanical garden-ka ama beertii weyneed lagu beerayay waxa la leeyahay wixii kala wada duwan taasi ku xigta marka ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu mashruucan noqdo mashruuc taabagara oo wax ku ool u noqdo Somaliland imaka muddada la soo waday waad yaabaysaa siduu isu bedelay wuxuu noqon doonaa mashruuc hadhowto lagu xanaaneeyo oo kaliya maaha maaragtay duurjoogta laakiin wuxuu noqonayaa mashruuc la soo siyaarto oo dalxiisku yimaadaan oo loo soo dalxiista uu noqonayaa insha Allah bismillaah karim mashruuc wanaagsan buu noqon doonaa waxaan halkan uga mahad celinaynaa dhammaan tayado saanu dhannahay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland oo dhagaxa noo dhigay ee runtii isku taxallujiyay sidii mashruucaasi uu taabagal lahaa halka maanta maray soo gaadho mashruuc 30 sanadood weeye waa mashruuc wadanka oo dhan uu ka faa'iidayo mashruuc deegaanku ka faa'iidayo mashruuc hadii alla labada mashruuc ee waaweynba waxay noqon doonaan mashaariicda ugu waaweyn dalka ee Somaliland maanta ku faantay noqon doonaan